dowladda dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa go'aan adag oo taariikhi oo dhaxalgal ah ka soo saartay markii ugu horeysay deegaamadii shaqaqadu ka dhacday ee deegaanka Ceelaf Weyn iyo guud ahaanba deegaamada dhul daaqsimeedka ah ee ku xeeran go'aankan oo ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland kagana dhawaaqay goob ay Ilyartus qabatay oo guud ahaanba ay ku sugan yihiin waxgaradkii cuqaashi salaadiintii xeerbeegtigii iyo cid kasta oo nabadda dalayso guud ahaanba u soo gurmatay deegaamadaasi ayaa waxay ahaayeen go'aamadaasi kuwa ka jawaabaya baahida xilligan loo qabo in la helo nabadgelyo waxay si gaar ah uga jawaabayeen sugidda nabadgelyada sinaanta wadaaga daaqa iyo baadka mamnuucidda hubka iyo deegaameynta cusub iyo guud ahaanba deegaameynta kale ee xilligan laga dhisay guud ahaanba guryaha iyo cooshadaha oo ay dawladdu ka soo saartay burburin iyo go'aan sharci oo adag wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa go'aankaasi halkaasi ka akhriyay waxaana uu go'aankaasi u dhignaa sidan uu u sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid ujeedooyinka go'aankan in la sugo lana helo nabad waarta oo dhex marta beelaha walaalaha ah ee wada deegaamada Ceelaf Weyn taasoo ku salaysan is-aamin iyo wadaag baadka iyo biyaha ilaahay uu dhulkan ku oomay go'aamada xukuumaddu jamhuuriyadda Soomaaliland waa sida hoos ku cad nabadgelyada dawladda ayaa ka mas'uul ah guud ahaan nabadgelyada iyo ammaanka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan deegaamada go'aankani sida tooska ah u saameeyo iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxa reeban sidashada hubka sharci darrada ah mid shakhsi mid kooxeed iyo ciidan beeleed hubaysan gabi ahaanba waxaa reeban haysashada hubka culus ee ugu yar yahay qoriga loo yaqaano PKM cidda lagu arko hubka noocaas ah waxa loo aqoonsanayaa dambiile khalkhal gelinaya nabadgelyada waxaana ciidanka nabadgelyadu ku amran yihiin kana qaadayaan tallaabada ku habboon waxa reeban nooc kasta oo hub ah in lala soo galo goobaha dadku wadadeero tuulooyinka iyo ceelasha biyaha ciidamada ilaalinta nabadgelyadu waxay awood sharci oo buuxda u leeyihiin inay ka hortagaan isla markaana ka qaadaan tallaabada sharci ee ku habboon cid kasta oo samaysa falal ka dhan ah nabadgelyada waxaa la farayaa waxgaradka odayaasha iyo hogaamiyayaasha dhaqanka ee beelaha cuqaasha inay kala diraan ciidamada beeleedyada hubaysan 24 saacadood gudahood oo ka bilaabanta maanta oo ay taariikhdu tahay 21 bisha 9aad 2016 24 saacadood gudahood ayaa la farayaa cid kasta hadduu cuqaal yahay iyo hadduu nin garbood yahay iyo hadduu suldaan yahay inuu ciidan beeloodkooda 24 saacadood gudahood uu ku kala diro ciidanka qaranka waxaa la farayaa inay dabagal iyo hubin ku sameeyaan dhaqangelinta iyo fulinta go'aanka kala daristiga ciidan beeleedyada shakhsiyaadka ama kooxda ka hortimaada kala darista ciidan beeleedyadaas fulin weeyo qodobada go'aanka iyo amaamiirta ciidanka qaranka waxaa loo aqoonsanayaa
ay u aqoonsanayaan nala farayaa inay yihiin dadkaasu dambiile iyo dambiilayaal waxaana laga qaadanayaa tallaabo kasta oo ku habboon iyadoo la horgeyn doono hay-adaha sharciga daaqa iyadoo la tix raacayo degreetada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dhulka daaqa iyo deegaanka xoolaha lagu dhaqaa waa hanti qaran oo mas-uul ka tahay dowladdu sidaa awgeed lama kala laha lamana kala sheegan karo ciddii ay ku caddaato inay ka sheegto in cid kale ka sheegato dhuldaaqsimeedka waxaa ciidanka iyo hay-adaha amnigu u xilsaaran yihiin inay tallaabada sharci ee ku habboon ka qaadaan deegaanka iyo deegaamaynta gebi ahaanba waxaa la joojiyaa deegaamaynta waxaa la joojiyey deegaamaynta dhuldaaqsimeedka dadka ka dhaxeeya oo had iyo jeer sabab u noqda khilaafka bulshada deegaanka iyo colaadaha sokeeye ee soo noqnoqonaya lama deegaamayn karo guud ahaan dhulka xooluhu daaqaan ee aan loo haysan ogolaansho dowladeed oo sharci ah laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 21 bisha 9aad 2016 waxaa reeban in deegaamada dhuldaaqsimeedka laga yeegleelo magaalooyin xidhmooyin tuulooyin cashiimooyin baraago iyo wax alla wixii la mid ah maamulada gobolka Sanaag Sool iyo maamulada degmooyinka Ceelaf Weyn Garaadag Dararweyne Awrboogays iyo Xudun awood sharci uma laha ogolaanshaha iyo bixinta degsiimooyin cusub oo laga yeegleelo dhuldaaqsimeedka ilaa iyo inta sharci qayaxaya ka soo baxo dawladda dhexe deegaamaynta bacaha dawladdu iyadoo ka duulaysa soo afjarista shaqaaqooyinka soo noqnoqonaya ee ku salaysan deegaamaynta goobtaas ilaalinta iyo daryeelka dhuldaaqsimeedka dadka ka dhaxeeya go'aamadii maamulka gobolka Sanaag iyo maamulka degmada Ceelaf Weyn ka soo saareen goobtaas dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay go'aamisay in deegaanka bacahu uu yahay dhuldaaqsimeed dadka ka dhaxeeya oo aan la kala sheegan karin waxa weeye in deegaanka bacahu uu yahay dhuldaaqsimeed dadka ka dhaxeeya oo aan la kala sheegan karin in ugu dambayn 10 bisha tobnaad 2016 gabi ahaanba la baabi'iyo lana aaso dhammaan wixii dhismo ka jira deegaanka bacaha sida godadka bacaha la geliyo ee biyaha waabab buulal xidhmooyin iyo wax la wixii la midaba waxaa reeban in goobtaas laga sameeyo wax barkad ah deegaamaynta isku kufka dawladdu iyadoo ka duulaysa iyadoo laga hortegayo in deegaamada dhuldaaqsimeedka laga samayn yagleelo cusub ilaalinta iyo daryeelka daaqsimeedka dadka ka dhaxeeya go'aamadii maamulkii gobolka Sanaag iyo Ceelaf Weyn ka soo saareen dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay go'aamisay in deegaanka isku kufku yahay dhuldaaqsimeed dadka ka dhaxeeya oo aan la kala sheegan karin in ugu dambayn bisha 10keeda bisha tobnaad 2016 gabi ahaanba la baabiyo dhismayaasha ka jira
deegaanka isku kufka inaan laga samayn karin barkad biyood nooc kasta oo ay tahay marka laga reebo barkadda keliya ee iminka ka jirta isku kufka taasoo hore loo ogolaaday dhismayaasha ceelka Dogoble nabadu waa aasaaska wada noolaanshaha bulsho kasta oo meel ku dhaqan dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duulaysa soo afjaridda shaqooyinka soo noqnoqday ee ku salaysan deegaameynta ceelka Dogoble ka duulaysa nabadeynta iyo wada noolaanshaha bacaha ee beelaha walaalaha ah ee wadaaga baadka iyo biyaha deegaanka ceelka Dogoble ka duulaysa tixgelinta iyo dhaqangelinta heshiiskii saddex geesoodka ah ee Daahweyne 1993 oo qayaxayay inaan la deegaameyn karin ceelasha Duud Caraale dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay go'aamisay in ugu dambeyn bisha 10keeda bisha 10aad 2016 laga bilaabo lagu baabi'iyo dhammaan dhismayaasha ceelka Dogoble waxaa reeban in dhismayaal iyo degsiimo laga sameeyo ceelasha Duud Caraale go'aankan kadib in dawladdu bixiso magdhow dhismayaasha rasmiga ah ee ka kooban daaraha sandaqadaha iyo kuwa dhagaxa ah qiimaynta hantidaas waxaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland u saaraysaa guddi farsamo oo madax bannaan oo aqoon u leh qiimaynta hantidaas marka ay soo baxdo qiimaynta hantidaasi waxay xukuumaddu ku bixinaysaa magdhowga lacagtaas ee dhismayaashaas muddo 3 cisho gudahooda biyaha dabiiciga ah ee ceelasha iyo dooxooyinka lama kala laha gaarna looma kala sheegan karo si siman ayaa loo wada cabayaa loona wada daaqayaa loo wada cabayaa dad iyo duunyaba ceelka Dogoble waxaa mas'uul ka ah wasaaradda biyaha oo keenaysa mashiino iyo shaqaale dhex u ah bulshada deegaankaas inta la keenayo mashiinka wasaaradda waxaa lagu cabayaa habka wadaanta ama mashiin ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maamulayaan waxaana ka reeban in lagu isticmaalo mashiin gaara loo leeyahay wasaaradda biyuhu waxay ka dhisaysaa ceelka Dogoble dushaysa taangi biyood sida ugu dhaqsaha badan oo kayd biyaah maadaama ceelka Dogoble iyo ceelasha kale ee Duud Caraale ku filan yihiin waraabka xoolaha waxaa la mamnuucay dib u qodista ceelka Dhuxulaaley gebi ahaantiisba haddii ay timaado baahi loo qabo qodista ceelka Dhuxulaaley oo bulshada deegaanku isku raacsan tahay waxaa wada bixinta iska leh dowladda dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaliya macnaheedu waxa weeye degmo iyo gobol iyo wasaarad midna shughul kuma leh waa wax dowladda dhexe u taala dowladda dhexe macnaheedu marka la leeyahay waa wax madaxtooyada ka soo fulaya oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu og yahay inay qodobkeeda faansiiyaan doonaya agan mari waxaa gebi ahaanba mamnuuc ka ah in degsiimooyin laga yagleelo ceelasha Duud Caraale ee xoolaha laga waraabiyo dushooda guud ahaanba sidaa u dhan yihiin dhimasho iyo dhaawac
dhammaan dadka ku geeriyooday labadii dhacdo ee kala dambeeyay oo ah 13 qof waxa ku waajibtay mag waxa ka waajibtay mag qadarka iyo qiimaha magta dhulka dadka dhintay waxa lagu kala qaadanayaa qofkii 130 halaad 130 halaad jifada magahaas waxa lagu kala qaadanayaa 40 halaad oo dhogor ah waxaana lagu bixinayaa muddo dhan 30 cisho oo ka bilaabanta bari oo ay taariikhdu tahay 22 bisha 9aad 2016 magweynta kale waxa lagu kala qaadanayaa qiimo dhan hashiiba $400 waxaana lagu bixinayaa muddo dhan 9 cisho oo kaliya oo ka bilaabanta bari oo ay taariikhdu tahay 22 bisha 9aad 2016 wixii dhaawac dhex yaala beelaha walaalaha ah waxa lagu xalinayaa oo loo marayaa habka shariicada islaamka ah waxaana loo saarayaa guddi culimo ah oo khibrad u leh muddo 9 cishood gudahooda magacaas haddii muddadaas kor ku sheegan lagu bixin waayo xukuumaddu awood ayay u isticmaalaysaa si ay iyadu u bargoyso xoolahaas xukun ku dhacay fulinta go'aamada iyo dhaqangelintooda haddii la jabiyo dhaarta labada beelood iyo qodob ka mid ah qodobada go'aankan waxaa reerka ay ku caddaato mutaysanayaan xadhig loo maray sifaha sharciga iyo bixinta ganaax lacageed oo dhan $20,000 dhammaan qodobada heshiiskan waxaa filintooda ka mas-uula dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay wakiil uga yihiin ciidanka nabadgelyada iyo wakiilada heer gobol iyo degmo oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ee deegaanka xuqaal iyo salaadiin labadaba waqtiga dhaqangalka go'aankan go'aankan waxaa si rasmi ah dhaqangal uu yahay marka la soo saaro nuqul ay ku saxeexan yihiin wasiirada xukuumadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo igmaday arrintan khilaafka duud caraale iyo deegaanka ceelaf weyn laga bilaabo taariikhda go'aankani soo baxo waa dhaqan gal qodobadiisu ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland way qabaan xogta nuxur ee uu xambaarsan yahay iyo guud ahaan fulinta awaamirtu uu tilmaamayo oo dhan saxaaxa go'aamada waxaa soo saaray oo saxeexay xubnaha wasiirada hoos ku qoran oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo igmaday xalinta arrintan mudane yaasiin maxamuud xiir wasiirka wasaaradda dakhliga arrimaha gudaha wasiirka madaxtooyada mudane maxamuud xaashi cabdi wasiirka warfaafinta Ismaan Cabdilaahi Saxardiid wasiirka dib u dejinta mudane cali Siciid Reygal wasiirka duulista iyo hawada gaadiidka cirka mudane Farxaan Aadan Haybe wasiir dowlaha xanaanada xoolaha Cabdirashiid Maxamuud علي وزير ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane maxamuud warsamo jaamac السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أدبو مهدسنتين عقاش iyo waxgaradka iyo salaadiinta guud ahaanba ka soo jeeda labadaasi ardaa
ee goobtan ku sugnaa ayaa geestooda soo dhaweeyay go'aamadan waxaana ay dowladda ka codsadeen inay guud ahaanba noqdaan go'aamadaasi kuwa fula waxa iyaguna geestooda go'aamadan soo dhaweeyay dardaaran iyo wacyigelin ka jeediyay ergooyinkii ka soo gurmaday guud ahaanba gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland waa Cabdisataar Sabri iyo Ismaaciil Cakule TV-ga qaranka Soomaaliland Ceelaf Weyn.